waxaanu sheegayaa dadka curyaanka waxba la siiyaa dadka curyaanka waa loo gurmadaa dadka hantida yar la waa loo gurmadaa qof aan aragnay ma jirto waxaan halkan ka sheegayaa inaan dad masaakiina waxba la siin TV-ga SBC ayaa saaka gaadhay goobtani oo hay'adda barakacayaasha iyo kaydka raashinka qaranka gobolka Gabiley ay raashin ugu qaybinayeen 500 oo qoys oo ku nool magaalada Gabiley. markii aanu halkaasi gaadhnay ayaa waxa aanu kula kulannay hooyooyin danyar ah oo loo adeegsanayo awoodda dawladda taasi oo ay ciidamada booliska gobolka Gabiley u adeegsanayeen rasaas iyo ulo si awood lehna u kala kaxaynayay hooyooyinkan baahida haysta la soo miceen biday halkan saaka raashinka loogu qaybinayay qoysaska danyarta ah ee gobolka Gabiley. hooyooyinkii halkaasi ku sugnaa ayaa TV-ga SBC la hadlay waxaana ay ka warameen dhacdada ay saaka halkani kala kulmeen iyaga oo sheegay in raashinka loo diiday in ay qaataan taas beddelkeedana la siiyay dad aan u baahnayn oo dana gaar laga lahaa isla markaana aan ahayn dad danyar ah waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana ay sheegeen hooyooyinkani in ay goobta raashinka lagu qaybinayay ay kala kulmeen tacaddi aanay ka filayn saaka markii ay goobta imanayeenna ay lahaayeen rajo ah in ay soo helaan raashin ay quud uga dhigaan qoysaskooda balse sidii ay rajaynayeen waxba uma dhicin oo waxa ay sheegeen in raashinkii loo qaybiyay dad aan u baahnayn oo aan danyar ahayn dadkii danyarta ahaa ee raashinka u baahnaa ee horeba loo soo qorqorayna lagu celiyay iridda hore ee guriga martida magaalada Gabiley oo ah goobta raashinka lagu qaybinayay dadkani danyarta ah ayaa sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen xafiiska hay'adda diiwaanu sakaadka gobolka Gabiley oo waxa ay sheegeen in xafiiskaasi uu ka jiro nidaam qof jeclaysi iyo qabali ahi isla markaana dadka danyarta ah lagu kala faquuqo gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada gobolka Gabiley oo aanu isku daynay in aanu la xiriirno isla markaasina aan wax ka weydiino cabashadan ay dadka danyarta ahi u soo jeediyeen ayaa ay noo suurageli weyday in aanu helno sababtoo ah waxa xidhnaa xafiiska diiwaanu sakaadka gobolka Gabiley oo aanu booqanay dadkan danyarta ah oo la hadlay TV-ga SBC ayaa waxa ay baaq dheer u direen cid kasta oo ku shaqo leh arrimaha danyarta in hoos loo eego cabashadoodan oo maalmihii u dambeysay isa soo taraysay waxaana yiraahdeen waxaan halkan ka sheegayaa inaan dad masaakiina waxba la siin dadkii maraweynta ahaa dadkii lacagta lahaa dadkii kaashka haystay dadkii dukaanka haystay la siiyay dadka barakacayowga ah ee daadashu ka qaadeen xoolaha aan la siin dadka maxay yeelay masaakiinta miyiga ka soo guuray aan la siin dadkii ay baqdiyayaan han soo qoray liiska rabadaan horteedan xereeyay waxba aan lagu siin dadkii halkii ka barooranayo wadadaanu kiiloogi aanu iska dhex guraynay hanu waxaan ku kiiloogi aanu iska guraynayna dhamaaday aqal walba soo ootay xaafadaha ugu khatarsan waa xaafadaha magaalo xabxabta aqaladoodi way gubtaan biyaha shalayda way gubteen waad ogeydeen mid aliya madax dad baa dadka ku sigtay biyaha malihin qasabado waxba malihin dadkaasi waa dadkii wax loo qaban lahaa wax loo tari liiskayga 3 jeer baa 2 jeer xamsa yeeriyay oo igu yiri kama milhid gudida waan ku fasaxay xaafadana anaa ka mas'uula maantana way qatay yihiin liiskoogii lama soo saarin waxba looma qaban sidaas ay isku daba meeraysanayaan waa dadka maxay haydeen baqtiyaya waxa loo qabtaan leeyahay dawladdaanu sheegaya maayirkaanu sheegaya madaxweynahaanu sheegaya ma aqaan wuxuu yiri anigu shaqo kuma lihi buu yiri anigu 20 sanadood buu gobasha ii yaala katiitar baa 12 ku jira jaarka inta leeg way og yihiin cidii timid iyo cidii joogtay iyo cidii yeedhisan midna ma arko ma jiro dadka hantida yar la waa loo gurmadaa qof aan aragnay ma jirto kaarkayagana waa la qortaa dad baa ku qaata weli qof aan aragnay ma jirto shalay halkaas la naga kaxeeyay yaroo midhan baan nahay cid wax noo timaadaa ma jirto cid wax noo tartaa ma jirto ilaahay baan wakiil ilaahay baan waxaan Nuure Maxamed waxaan ku soo jeednaa qaybta taangiga
dadkii waa la soo garaacay qaar waa lala soo hadlay lambaradiiba markii dambe laga qaba waayey meeshan cadaalad ma jirto nin walba siduu wax u bixinaya ninku garanayo wax siinaya reebel iyo reebel hadii lagu shaqeeyo cadaalad ma shaqeyso intaasoo qof oo danyara ayaa qabtan oo waxba la siin saddex goobadan waagaa bariye marnay halkaas la idinka yeedhiyay halkaa kale la idinka yeedhiyay de markaa sheekh xamse dadka dar ilaahay ugu shaqeeyo saddex goorna waa naloo yimiday waa nala qoray talabaad anagu gudoomiyaan ka ahaa 40 ruux saddex goor baa naloo yimid kol inama yaryar baa noo yimid kol dumar waaweyn baa noo yimid idinku ishabeeyayna yidhaahdeen waanu ishabaynay deetana inan yar baan soo dirannay inantii yareed halkaad ka socotaba ma naqaanaa la yidhi haddana saaka waana lagu soo kallahay saddex goobood baanu tegnay saddexdii gooboodba waxba nooma yaaliin baa nala yidhi waxba idiinma yaaliin baa nala yidhi ayaan agoomay leeyihiin danyaray leeyihiin sidaas ilaah nagu og yahay waa bari rabadaan wixii kalaba dhaafo saakada saaka alla ee dantayada la soo dhaafiyay ilaahna waan u gudbinay allah barakan ka socdaa mii baan ka soo guuray bari dhawey in yar baan alla dad xanuunsan waan haystaa dad kale waalid oo bukan waan haystaa marka dad waalid oo bukan waan haystaa dad maxaan ku daa dhibarka oo maxaan ku daa kinaan biyana waan haystaa waxa la nagu yiri halka kaalaya dabadeedna wax alla waxaanu ka haynaa ma jirto dadkana wuxuu u badan yahay walaal dad dan yar u dad badankiisa u badan yahay cadaaladna laguma shaqeynayo nin walba ninkiisa u shaqeynaya ilka halka waranido markii aad meesha timaadeen cad kala kulanteen halkan maxaan budiya dhagaxan walaal kala kulannay maxaad meesha ka fulaseen markii hore waxaan ka fulayay in cadaalada walaal noogu shaqeeyo waxa iyaga hagaagna noogu soo saaro oo noo siiyaan deebiga haatan ma haydo gudabano ayabanu soo tarasanay maxaad fariin u diraysaa qolooyinka hawsha shaqada waxaan u diraynaa si cadaalada walaal in la noola shaqeeyo in la noola wado yaanu darteedu ilaahay idankiisa waxaan u sheegay inay meel walba waji tahay iyo waxaan ku dhigay anaga dad xanuunsanayna haysanaan waxaan ku dhilana lana xasilo halkii aan raashinkayga la qaatay waxaan u sheegay waxaad dadka la iskugu keenay halkan dadkii danyarta ahaa lama simin waxa weeye in dadka danyarta ah ee wax la siinayo in la siiyo waxa leeyahay dadkii danta laga lahaa unba wax la siinaya marka dadka hal la simaayaan leenahay anagu masaakiinta danyartaana waxa la siiyo baan leenahay banaankaas ay wada taagay waxba cidima siin intii danta laga lahaa unba halka la geystay caaqil jamaal maxamed warsame oo goobjoog ka ahaa halkani raashinka lagu qaybinayay ayaa ka hadlay dhacdada goobtani ka dhacday oo uu goobjoog u ahaa iyo tacadiga ku dhacay qoysaska danyarta ah waxana uu yidhi waxaan xaggan adkaysan kari waayay aniga oo ka tirsan cuqaasha gobolka Gabiley ahna caaqil jamaal maxamed warsame waxaan adkaysan kari waayay dadka danyarta masaakiinta ah ee meesha xabadda la dhacayo markaasi meesha waxba maamulana oo waxaan bixinanaa sakaatu fitri si qaldan baa loo bixinaya sakaatu fitrigan waxa ka dhex muuqda dana gaara dad dana gaar ah ayaa ka dhex muuqda meeshan oo la siinayo masaakiintii danyartii wata xabadda la dhacay adarkaysan waa kuwa wata loo yeerinayo hooyooyinkii agoomihii waa kuwaana wadaag taagan waxa baaqdeen u diranaa cidii ay ka soo baxay in ay ku noqdaan oo ay siiyaan masaakiinta u baahan ayaa farna cidda maamulasa oo ka mid yahay xamse oo sheekhi magaalada ah isla baaqmaan u diraya waxaan leeyahay xamsow liis khaldan baa lagu dhiibay cidii ku dhiibtayna adiga ilaahay bay sog adeertaki masaakiinta waa kuwa adarkayso waana lagu daba tukadaa waxaan leeyahay halka iyada ah lagu noqdo masaakiinta loo naxariisto dadka danyarta masaakiinta u baahan hala siiyo wax taasaan leeyahay waa maxamed cabdi cumar maxamed udiin warkurbeynta SBC gobolka Gabiley.